sidaad la socotaan wafdi oo hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka mudane injineer maxamed xuseen roble ayaa shalay waxaan ku nimid booqasho waddanka isu tagay imaaraadka carabta magaalada abu dhabi wafdigaasoo si heer sare ah loogu soo dhaweeyey magaalada abu dhabi maanta oo taariikhdu tahay 31 waxaan la kulannay madaxweyne ku-xigeenka isla markaana ah ra'iisul wasaaraha waddanka Sheekh Rashid Al Maktoum labada mas'uul waxay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeyay labada waddan sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa wasaaraha wuxuu kaloo warbixin ka siiyay xaaladda abaaraha ba'an ee waddanka ka jirta wuxuu nooga mahadceliyey shixnadii ay waddanka u soo direen wuxuu kaloo ka codsaday in ay waddanka gargaar kale oo dheeraad ah ay u soo diraan ra'iisul wasaaraha waxaa kaloo ra'iisul wasaaraha waddanka imaaraadka carabta kala hadlay arrimaha ganacsiga iyo sidii loo xoojin lahaa sidii loo furi lahaa xoolaha waddanka Soomaaliya oo muddo badan xayirnaa sidii ganacsatada loogu fududeyn lahaa imaatinka waddankan iyo fiisooyinka iyo dalku galka waddankan sidii loogu fududeyn lahaa ra'iisul wasaaraha waddanka imaaraadka dhankiisa wuxuu ka mahadceliyey sida wanaagsan booqashada uu waddanka ku yimid ra'iisul wasaaraha wuxuu kaloo ballan qaaday in xiriirka labada waddan uu sii xoojin doono in abaaraha Soomaaliya ku habsadanay wax weyn uu ka qaban doono in ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo furitaanka xoolaha waddankana uu wax ka qaban doono shirkaas wuxuu ku soo gabagaboobay isfagarad iyo isfaham